xaaladda abaaraha ee gobolka Awdal ayaa marka ka dambaysa ka sii daraysa wararka uu telefishinka caalamka ee Somali Channel uu helayo ayaa waxay tibaaxayaan in laba qof oo kale ay ku dhinteen abaaraha baasan ee ka jira gobolka Awdal iyagoo horena ay ku dhinteen 5 qof oo kale barasaabka gobolka Awdal Maxamuud Cali Saleebaan Ramaah ayaa waxa uu kulan degdeg ah subaxnimada hore saaka isugu yeedhay culimada waxgaradka aqoon-yahanka iyo mas'uuliyiinta degmada Boorama waxaana halkaas uu barasaabku kaga dhawaaqay gudida abaaraha ee gobolka Awdal waxna waxaan dib u activate garaynay gudidii abaaraha ee gobolka waxaan cid kasta ugu baaqayaa oo doonaysa inay abaaraha ka qayb qaadato inay gudidii rasmiga ahayd ee gobolka hore uga jirtay ee ay culimadu hogaaminaysay inay ku soo shubaan wixii dhaqaale ah iyo wixii mucaawinah ee ay keenayaan dhammaan hay'adaha waxaan ugu baaqayaa inay iyaguna xidhiidh la sameeyaan si wixii ay u noqdaan wax waxtar ah oo xooggeena aan isugu geyno kolba meel isugu geyno barasaabka gobolka Awdal Maxamuud Cali Saleebaan Ramaah oo hadalkiisa si wata ayaa sidoo kale waxa faahfaahin dheeraad ah ka bixinaya gudmadka ilaa hadda ay u fidiyeen dadka abaaruhu saameeyeen ee gobolka Awdal waxaan diraynaa 10 gaari oo iyaguna inay dadka soo daadgureeyaan saaka raashinkii baan dirnay xalayto waxaan dirnay 8 gaari waxaan dirnay oo kale maanta la ambalaasyadii oo ay wasiir ku-xigeenkii hogaaminayeen iyo wasiirkii ciyaaraha runtii si isdaba joog ayuu gurmadku noogu socdaa mana aha wax istaagaya Maxamuud Cali Saleebaan Ramaah barasaabka gobolka Awdal oo hadalkiisa si wata ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay halka ay maraysa xaalka ay ku sugan yihiin dadka abaaruhu saameeyeen gobolka Awdal uu sheegay hada dhimashada imka ay hayaan ay ku soo kordheen 2 qof oo kale iyagoo horena u dhinteen 5 qof oo kale saacad iyo barka horbaana loo soo sheegay hadda 2 qof oo kale oo dhintay maanta oo u dhintay degmada Lughaya marka waxa weeyaan maalin walba way sii kordhaysaa maalin walba way sii kordhaysaa imika ilaa xad tiradaanu hayno dhimasho waa 8 qof si kastaba arintu waa xaaladda abaareed ee ka taagan gobolkani Awdal ayaa waxay tahay tii ugu adkeyd iyadoona laga cabsi qabo in dhimashada dadku ay sii korodhay iyadoo horena ay u dhamaadeen xoolihii ay dadkaasi ay dhaqan jireen ayaa haddana maamulka gobolka iyo maamulka degmada Boorama ayaa waxay hadhiyo habeenba isku xilsaareen sidii ay u sameeyay bixin lahaayeen dadka abaaruhu saameeyeen ee gobolka Awdal ay hore uga dhamaadeen duunyadii iyo xoolihii ay lahaayeenba waa Maxamed Xasan Ismaaciil Bere telefishinka caalamka ee Somali Channel magaalada Boorama xarunta gobolka Awdal